haddaad iskuullo dad wataan kolkolinaysaanna ninkii gaalooyana gaalnimada u diidi mayno, ninkii naag noqonaya la fuulayana anagu u diidi mayno, naagtii naag ku kaaftomaysana u diidi mayno. nin walba wuxuu doonaa sameeyo, laakiin xisaabta Ilaahay un bay noo dambaysa. Sheekh Xasan Daheeye Axmed oo kamid ah culimada waaweyn ee gobolka Hawdal ayaa xukuumadda Soomaaliland ee garwadeen ka yahay Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in si degdeg ah ay u sii daayaan saxafi samafale Cabdi Maalik Sheekh Muuse Coldoon. waxaanu sheegay waa sida uu hadalka u dhigay Cabdi Maalik arrimaha uu ka hadlay inay yihiin arrimo jira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa. waxaan leeyahay ilaahay ummadda Soomaalida islaamnimadeeda iyo Soomaalinimadeeda intaba ilaahay ha sugo. ilaahay gargaar baan u weydiinayaa Soomaalida, ilaahay inuu gargaaro meel kasta joogaan. waxaad moodaa waddankeenu dhul ahaan ilaa laga bilaabo Lowyacdo ilaa aad ka gaadhaas Kaamboon iyo Kismaayo, waxaad moodaa waddan lagu soo duulay iyadoo oo la iskaga dhigayo waddan saaxiib la leeyahay oo qolaba meel lagu ootay, hay-adan lagu soo fatihiyey. aad yaabayso markaas mujtamacani halkuu ku socdaa baad is leedahay. maxaa yeelay hay-adaha soo galay burburkii dabadeed ee yimiday waddankeenna oo aanu bixiyey maaragtaan ayaana seminaaro aan kala joogsi lahayn oo dadka nooc seminaarada loogu marayo 30 sano oon iminka joogno wixii 9 ka dambeeyey. ninkii hadla ee ama wariye ama samafale ee wanaagsanaa kolku wax ka hadlana waxa leeyahay maaragtaan waa dawladdu duminaya, dadku been ka sheegaya, iskuuladu been ka sheegaya. maanta imise iskuul baa ka furan Soomaaliya ama Somaliland baan raadaya iyo jaamacado aan la ogeyn wax alla waxay faafin cidina ogeyn oo ciida ka fara badan. mid walba Ethiopia laga soo qaadanaya, Kenya laga soo qaadanaya, Uganda laga soo qaadanaya, meesha dal laga soo qaadanaya. waxa weeyaan qolo walba waxbay faafinaysa. waxaan leeyahay anigu qadiyada aan u jeedaa maanta waxa weeye ninka la yiraahdo Coldoon, Cabdi Maalik Coldoon la yiraahdo, ilaahay maartay faraj qaba asiye waan u duceynayaa. waxa weeyaan madaxda Soomaaliyeed ee Hargeysa joogto waxaan ka codsanayaa ee madaxweynuhu ugu horeeyo ninka inay furaa ka qaado iska daayo. waxa uu sheegay wax khayr un baan ila noqotaa. maxaa yeelay haddii meel wax la farlata lagu fiiqo waxaa jira lama dafiri karo. sadirta horta waxaan leeyahay in la Cabdi Maalik waxaan leeyahay isaga waxa adiga ku filan ama jeel ku jir ama godha lagu rido ama station lagu haysto waxa ku filan adiga wal casri baa ku filan. wal casri innal insana la fi khusr illa alladhina aamanu wa amilus salihat. afartan nooc ee ilaahay ka soo reebay bini aadamka khasaaray ayaa maanta adiga ku asabir. maxaa ila afartaas iimaan iyo amal saalixa iyo xaq oo ay sheegaan oo ina ka cabsoonin ku kasto canaantamay canaantiisa iyo dagaalkiisa ana ka cabsoonaynin oo xaq sheegaya. xaqaana dib baa ku soo gaayay qofka. nabigeeni baa lagu dhibayay, asxaabtiisa baa lagu laayay, maartaan oo nafta laga qaaday. gabadha Soomaaliya loo jiray ee wareentiba maartay Yamanada miskiin tahay ee rumaysan nabiga iyo odageedii Yaasir maxaa lagu dilay Amaar abo labadiisi waalid. Abi Jahl baa dilay oo labadiiba dilay isku daray. muxuu ku dilay? yaani Nabi Maxamed baa raacay buu ku dilay. ilaahay jannada igana uu hogaamiyay, Abi Jahlna naarta loo hogaamiyay. marka waxa la madaxdu qofku hadduu wax sheego u fiirsada waxa uu sheegayo. aan hadalka ninka waan dhageystay hadalka madaxweynaha dawakiil inuu meesha waxba kuma arag waa labadu waan maqlay. laakiin iskuuladu runtan sheegaanu nin waxaan ay u yaraan 45 sanadood inta cumrigeedu jiro tacliin ma ka shaqeynayay. iskuul waliba waxa lagu dhigo isaga fatihi doona oo ardaysa soo saari doonta oo cadeyn doonta wixii loo dhigay iyaga sheegi doona ku faani doona. habaha degdegsanina. Amerika ka sheegi doonaan, Yurub ka sheegi doonaan, Soomaaliya ka dhex sheegi doonaan. ardada lafteeda yaa macallimiinta meesha joogta waxay u dhigeen iyaga sheegi doona. weel waliba wixii lagu shubana uu fataha. weel walba wixii lagu shubo umba fataha.
marka waxa weeyaan iskuuladan horta haddii la leeyahay maanta iskuulkan abaarso oo kale ee dad badan ay isku xiijinayaan dee anigu waxaan la yaabanahay waxaa jira ninka ugu sarreeya maaragtay nimankan luudiinta la dhahdo dabada looga tago ee la guursado ee ragga ah kuwii ninka ugu weyni waa ninka Mareykanka ee doorta xisbigiisa la dhahdo maaragtay gayga ay doortaan madaxweynaha Mareykanka ee dimuqraadiyiinta ah sida Biden oo kale iyo Obama iyo ay doortaan weeyaan milyaneer weeyaan kaasi markaa yimiday Somaliland ee madaxtooyada lagu qaabilay ee beertii maxayga la geeyay ee meel walba lagu soo sawaray Yurub wadamada Yurubka ee Kristanka mamnuuc buu ka yahay ya marka haddaan sheegno oo nidhaa war waxaas inagu muslim baan nahay inuu inoo yimaadana ma ahayn inuu iskuulada inoo dhisana abaal kuma qabno annaga iskuulada iska dhisanayna annaga tacliinta islaamiga ah iyo tayada maaragtay annaga wadana maxaa qofka sheega loo qabsanaya markaas waxaan leeyahay madaxda Soomaaliland waxaan u sheegayaa madax waad u tihiin dadka muslimka ah ee diinta ilaalinaya anigu wadaadada kuma darayo yani iyagu dhuunigooda raacay ee maanta waxay sheegaana inaan wax dadka waxba taray ahayn anu ka hadli maayo laakiin inaan kaasoo kale eli war maxaa xarqada looma kacay ilaahay baa loo kacaa waa cibaado waa runtiis xarqad la surayo oo la kacaa oo calan leeyahay looma kacay ilaahay baa loo kacaa waquumu lillahi qaanitiin marka waxa weeyaan anigu dawladda waxaan leeyahay ummad muslimaad xakuntaan kitaabkaad mas'uul ka tihiin quraanka xadiiska rasuulkaad mas'uul ka tihiin sunnihiisaad mas'uul ka tihiin waa inaad ogaataan haddaad ku xidhaan sidii kacaankiiba naga haysatay iyo cid walba waxay tahay waxaan u sheegayaa xukuumadda ragga xukunka haya waxaan u sheegayaa khaasaan madaxweynaha Cumar ibn Khadaab oo aad garanaysaan ayaa khudbadeeyey asxaabtii la hadlay wuxuu yidhi haddaan khaldamo itoosiye buu yidhi ninba xagga safka halka u dambaysay masaajidka ka kaco wuxuu yidhi Cumarow haddaad khaldanto seeftaasaan kugu tooseynaa buu yidhi seeftaas intuu seeftii saa u taagay seeftaasaan kugu tooseynaa buu yidhi Cumar markaa rag baa waxaan ku yidhi amirulmu'miniinkaad waxaa ku leedahay buu yidhi wardaaya buu yidhi ilaahay baa mahadle ku seefta igu toosinaya ummadda ku daree daaya buu yidhi madaxa saasaa laga rabaa kolay hadday maaragtay wax khaladii jiro in la soosiyo oo la sheego oo iyaguna raalli ku noqdaan marka waxa weeye taasina waxaan leeyahay coldoonna waxaan leeyahay adigu xaq baad sheegtay dhibaata kugu dhacday sabir ogow waayo qodobka ugu dambeeya waxa weeye watawaasaw bisabri weeyaan yani xaqi ay sheegeen dhibta ku soo gaadha way ku sabraan haddii lagu xidhanayo ku sabir ilaahay baa ku arkaya haddii maaragtay lagu sii dayana ilaahay u shaqeeya iyo diintiisa ilaahay baa kaa rabaya udcu ilaa sabiili rabbika taasi waa taas qolyahan suurka abaarsa la dhaa ka hadlayna waxaan leeyahay amaha idin wanaagsanaa mayd xumaadee halkiisaa de waa ka idinku yaalla laakiin ogaada wixii au yahay uunbuu xaqiiqada noqon doonaa akhirka waxaad mudha ka goosataanna waa dee kolkaa waa yaad arki doontaan mudhaha aad ka goosataan annaguse waxaan idin leenahay in waxii la sheegaya la iska beri yeelaayo waa daruuri maantana Soomaaliland waxaan arkayaa waddan jaamacadiisu fataheen oo macallimiintu fatahday oo dadka maamulku fatahay markaasaa naag Nigerian ayaa la doortay oo lagu soo doortay maamul tukiina cawlan oo yadna kiina laga keenay oo ilaahay baa waxay dhaba aqoon ayaa la keenay leeyahay kuwana jimcida noo ah wallahi laga yaabo dadkii waka hoteelada fadhiya ka baxay jaamacadaha Hargeysa waa ka suuqa la wada fadhiyo Boorama waa ka suuqa la wada fadhiyo Burco waa ka suuqa la wada fadhiyo nin walbana mastered buu haystaa maxaa idin diidana dadkiina shaqaaleysaan kolkaad dooranaysaan sangaluuda Kenya iyo kuwa Nigeria Kristanka iyo kuwa gayga maartaanay dad bari iyo maxaa idin diiday macallimiintiina oo jaamacadda soo saareen anu maanta waxaan leeyahay ilaahay baan hor taaganahay ninkii madaxo ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso wadanka waxaad u keenaysaanna fiiriya sax ma yahay mise sax ma waxaase durbaba muuqata dad badanoo iskuulka wax ka dhigtay inay durbab meediyaha soo galeen wax ka badanna way soo gali doonaan way daba socon doonaan haba degdegina intaas ayaanu markaa u dirayaa maaragtay yana ummadda
waxaan leeyahay ninka coldoonna iska sii daaya haddaad madaxa tihiin waddankana dawanu ducaynana waxaan leenahay ilaahay waddanka nabadgelyo iyo khayr ilaahay noogu soo dabaalo insha allahu tacaala. Shuxufi Cishqi MM TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal.